Abdullahi Cabdi Talyaani loo gar og yahay Cabdi Talyaani haddii aad horay u baratay oo aad u aqoontayna waa ka haddii aadan horay u aqoonina hadeer baro. Professorkan wuxuu ka mid yahay professorada Soomaaliyeed, waxa uu ka mid yahay professoradii waayidii hore bariisamaadkii toddobaatameeyadii aqoontoodii haddii aan hore u dhex galo toddobaatameeyadii aqoon ka soo qalin jibiyay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faculty-goodana ku soo takhasusay siyaasada iyo saxaafadda. Professorkan Cabdi Talyaani magaciisa loo garan og yahay Abdullahi Cabdi Talyaani waxa uu professorada Soomaaliyeed kaga duwan yahay samafalka u dhaqaaqida xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ku nool dibadda iyo gudihiisaba. Professorka waa hogaamiyaha u dhaqaaqo ama waa hogaamiye u dhaqaaqo xuquuqda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Professorka haddii taariikh yar oo gaaban idinka siiyo waxqabadkiisii 2020 iyo 2021 waxa aanu ka xusi karnaa degmada Walaweyn oo wax badan ka qabtay ama daafeed sida aad u taqaanaan buur hakaba oo ka qabtay gargaar gurmad ka geystay laba dhacdo oo ka dhacday buur hakaba oo markaasi shaqaqooyin jiray oo asaga gacan ka geystay dadkiina yani oo ku xaliyay sida uu wax u arko. Professorka ma ahan hay'ad oo yani ku tiirsan yahay oo asaga hay'adaasi oo wax u qaadaya ma ahan, laakiin samafalaha mushaarkiisa oo asaga uu qaad ummadii Soomaaliyeed ayagoo ku caawiya mushaarkiisa ayuu ummadda Soomaaliyeed inta ay ugu go'do samafal ahaan oo u sameeyaa. ma ahan professor hay'ad ku tiirsan, ma ahan professor yani dawla ama dawlad shaqo kale, waa professor u dhaqaaqo xuquuqda dadka Soomaaliyeed ee xaqooda maqan tahay. waxaan xusi karnaa degmada Xudur gobolka Bakool tuulooyinka lagu magacaabo Faajar iyo Vaylo oo isbuucii ugu dambeeyay hadda bishan aanu ku jirno uu ka geystay gargaar. maanta barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa barnaamijka samafalka uu u sameeyay samafala Cabdi Talyaani loo garan og yahay Abdullahi Cabdi Talyaani samafalka uu ka geystay degmada Xudur. degmada Xudur runtii tuulooyinkan aan hadda ka hadlayno Faajar iyo Vaylo xogaa baryahan waxaa ka jiray shaqaqooyin aad u ballaadan maciishadii iyo dadkii meesha degnaa ee bulshadii ayagu waxba aynan haynin. samafale Cabdi Talyaani waxa uu u arkay markii uu fiiriyay dadkaasi xaaladda ay ku nool yihiin in uu yani wax u qaban karo. waxa uu u qabtay runtii ma ahan wax ay ayagu noloshooda ilaa iyo mustaqbalkooda ay ku sii maareyn karaan, laakiin dhibta markaas jirtay uu ku fajiyay. maxaad is leedahay haddii uu hay'ad ahaan lahaa ama hay'ad caalami ah oo gacanta ku hayn lahaa in yani bulshada Soomaaliyeed ku nool gobolada dalka in ay sidaan ku sii juri lahaayeen? Professor Cabdi Talyaani asigoo shakhsiyad ahaan u duulayo oo ah xuquuq u ololeeyo xuquuqda Soomaaliyeed dal iyo dibadba meesha ay joogaan ayuu intaasi garankooda gistay. dadkii ka soo qayb galay samafalka uu gaaray gacantii samafal Cabdi Talyaani ka soo baxday gaartay waxa kamid ahaa dadkan sidaan u hadlaya. dhageysta. turkiya diinin magaala ilaahay deesi may faraantiisa aduq balaawata haani yaro oo walaala wiiridahna deesi ha qomna kulli dabaatan horleen ku daraha tama wadan heedan ku dhaafaan meeragaw may faraantiisa aduq balaawata si hasan ka dhama tarafada noo ka deesi afadano hawaan ka deesi laatano ya faraan walwalaaliyaalkan siyaan ma wal kalmahayn ilaahay tabagalsan wal aan wala isman diibteen aragni yarjiin mahadsantiin may fadaan beertuma qamta kaartuma qam wal dharka galadaan ma qam iigi wal bismillaahi raana goshaatu na yaalan galadaan mahayn wal intooy ka dhar iidad galadaan mahayn wal diibteen eedanka mahadsanna usina kama nagaan ilaahay mahadale inta walaalkan korjarta ma ko osadana dhibkiina dhibaatada teeganta kulley bir rabban oo qaado qore ma eedanka mahadsanna anayo hobban ku qodo qoro in waan qobadan iladay masanaba hana deersiyay lan la kamaga aawo Professor Abdullahi Cabdi Talyaani waana
hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xuquuqda ee dadka Soomaaliyeed oo ka nool wadanka gudaajaysa kaashe waybana geeka ka wareejineen walaalogeen oo lahanka tala galay tiradii markaasay geekuna kula kulungni ilaayoonay ka dhowaan 8 qoys ya markaasay nagadan 8 qoysna langnaata geeka lagu tabi male dhamaantiyooba galanti wada deerti ma eedeeq oo macnaha in mudeeyo ku walku antaraasa mas'uul kumooti asama laakiin waa in lanka tala galayo bariyay maadaama iyada maalin oo markaasay ciidayada ta ciidul adti bulshadon reer faajir fayluhu taasoo maalmo ka hor ana hadiri degmada Xudur oona handiri inni ana aragteeda xog waraysi iyo la kulun ana la qaadada dad in badan shaashada haneen ku muuqdeen ana soo andaladan boqortooyada qoomiyadda sagaalka eeyla oo malaak Hussein mat kaasoo aragteeda in badan shaashada ka muuqday wana hay wakiiladeen dad kamid aysan boqortooyada qoomiyadda sagaalka eeyla ku sugan qurbaha ana social professor Abdullahi Abdi Talyani iyo Mahad Hussein Warsame iyo Abdurrahman Abdulle ana soo haaska kaaladeen iniyo hadirsan walaalnasho deeq mablinka sheego koran laakiin deeqlin arane xaqul ciide si iyo maalinka yawmul faraxga dadka wali yaragdeeda ka kala faraxan hadirsiyan $200 taasoo arday qaybintii geega aragdeeda aan fadheeni daawadayaal dhageystayaal ii jeedayaal barnaamijkeennii maanta waxaana diiradda ku saaraynay arrimaha samafalka Professor Abdi Talyani loo gar ogyahay Professor Abdullahi Abdi Talyani ee kamid ah dhaqdhaqaaqa xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa ummadda xuquuqaadka ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba ayaanu barnaamijkaas ku soo qaadanaynay samafalkii uu ka geystay degmada Xudur ee gobolka Bakool deegaanada hoos yimaada ee la magac baxay Faajir iyo Faylow samafalkii uu ka geystay ayaanu barnaamijka ku soo qaadanay sida aad u aragteen professorkana waxa aan leenahay khayr Allah ugu siiyo aad baad u mahadsantahay insha Allah intaasi in kan badan oo aad qaban doonto ayaan ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed xuquuqda aad u doodaysid iyo ummadda Soomaaliyeed garab istaagooda inta aad u sameynaysidna waxa aan rajaynaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula garab ahaado sidaas iyo nabadgelyo waa suuq yare oo idin leh salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh